الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد soo dhawaada walaalayaal mar kale waa cashirkii labaad ee ku saabsan fractionka maanta waxaan firinaynaa noocyada fractionka types of fractions waxaa jira saddex nooc oo fractionka uu leeyahay nooca koobaad ee fractionka waxaa la yiraahdaa proper fraction dee aan firino tusaalihiisa waxaa ka mid ah 3/4 iyo 2/5 noocan proper fraction waxyaabaa lagu garan karaa waxaa ka mid ah koreeyihiisa ayaa yar koreeyihiisa iyo hooseyihiisa waxaa yar koreeyihiisa ayaa yar nooca labaad ee fractionkana waxaa la yidhaahdaa improper fraction dee aan firino tusaalihiisa waxaa ka mid ah 3/2 ama 7/5 noocan koreeyihiisa ayaa weyn koreeyihiisa ayaa weyn oo ka weyn hooseeyihiisa marka waa kii hore cagsigiisa kii hore koreeyaha ayaa yaray laakiin kan koreeyaha ayaa weyn nooca saddexaad ee fractionka waxaa la yidhaahdaa mixed fraction tusaalihiisa 2/1/3 or amba 1/4 dabcan noocani waa number aan fraction ahayn iyo number fraction oo la isu keeno waa whole number iyo proper fraction la isu keenay dabcan markaad fiiriso tusaalaha 2/1/3 2 waa whole number aan jajab ahayn waaye 1/3 na waa proper fraction iminkana waxaan fiirinay oo qofku inuu ogaaday muhiim tahay kuna saabsan noocyada haddaan soo sheegaynay qodobka koowaad ee muhiimka waxay tahay proper fraction is always less than 1 jajabka nooca koowaad ee proper fraction la yiraahdo nooca koreeyihiisa oo yar yahay haddii toos la isugu qaybiyo markasta ay 1 uu ka yar yahay markaa fiirido tusaalahan 1/2 markii toos la isugu qaybiyo waxaa soo baxaya 0.5 oo ah tiro hal ka yar dabcan 1/2 1 ayaa yar koreeyaha kore ayaa yar oo waa proper fraction marka la isugu qaybina waxaa soo baxaya 0.5 oo ah natiijo 1 ka yar sidoo kale 3/4 markaan toos isugu qaybino waa proper fraction oo koreeyaha saddexa yare waxaa soo baxayana 0.75 oo ah tiro hal ka yar qodobka kale aan rabin inaan ogaado waxay tahay improper fraction is always greater than 1 improper fractionka nooca labaad ee koreeyihiisu weyn yahay haddii toos la isugu qaybiyo mar walba waxaa soo baxaya tiro halka weyn tusaale 3/2 waa improper fraction oo koreeyaha saddex ayaa weyn markii toos la isugu qaybiyo waxaa soo baxaya 1.5 oo ah tiro halka weyn sidoo kale 9/4 oo koreeyaha 9 ayaa weyn waa improper fraction marka toos la isugu qaybiyo waxaa soo baxaya 2.25 oo ah tiro halka weyn waa 2.5 natural numbers to fraction nambarada caadiga ah fraction waa laga dhigi karaa number aan fraction ahayn fraction waa loo bedeli karaa tusaale 5 ma aha dabcan marka hore fraction laakiin waa laga dhigi karaa fraction waxay noqonaysaa fraction hooseeyihiisu hal yahay 5/1 marka number kasta oo aan fraction ahayn waxaan ka dhigi karnaa fraction hooseeyihiisu hal yahay dabcan waa improper fraction oo koreeyaha 5 ayaa weyn sidoo kale markaad fiiriso 3 waxaa loo bedeli karaa 3/1 3 saddex loos dhigay hal waxaan fiirinaynaa bal improper to mixed improper fraction oo loo bedelayo mixed fractionka noocii labaad ee koreeyihiisu weynaay ayaan u bedelaynaa noocii saddexaad oo mixedka ah tusaale haddaan fiirino 6/5 waa improper fraction oo koreeyaha 6 ayaa weyn waxay noqonaysaa mixed aan haddii loo qoro 1/5 dabcan 1ka wuxuu ka imaaday 6 waxaa ku jira hal 5 haddii 6daa kore 5 laga bixiyana waxaa kusoo haraya meesha 6 ee koreeyaha hal ayaa kusoo haraya marka fractionka 6/5 mixed ahaan waxaa loo qori karaa hal iyo khumus sidoo kale markaan fiirino tusaalahan kale 7/3 koreeyaha 7 aa weyn waa improper fraction waxaa loo qori karayaa 2/1/3 waa 2 iyo thuluth
macnaheedu wuxuu yahay markaad fiiriso fractionka 7/3 7 waxaa ku dhex jira laba saddexaad. How many threes are in 7? 7 meeqa saddexaad ku dhex jirta? laba saddexaad oo 6 ayaa ku dhex jirta. Marka labada sidaa lagu qoray. laakiin haddii 7 taa kore laba saddexaad oo 6 laga reebo 7 kor waxaa ku soo haraya 1 oo 1/3 oo thuluth ayaa ku soo haraya. sidoo kale mixedka laftirkiisa waxaa dib loogu celi karaa improper fraction. waxaa laga dhigi karaa mixedka waxaa laga dhigi karaa fractionka reuse weyn yahay. markaan fiirino tusaale 2 1/3 waxaa loo qori karayaa 7/3 oo ku imaanaysa 2da oo aan fractionka ahayn iyo 3 oo hooseeyaha ayaa la isku dhufanayaa. waxay ku noqonaysaa 6 koreeyaha hal ku dar waa 7. sidaas ayay labadan nooc la isugu bedeli karayaa oo improperkii koreeyo weynaana mixed baa laga dhigi karayaa, mixedkiina improper ayaa dib loogu soo celi karayaa. aad iyo aad aad mahadsantihiin dhegeysigiina wacan. wuxuu ahaa cashirkani labaad ee ku saabsanaa fractionka. insha allahu tacaala cashirada xiga ayaan ku firi doonaa bal fractionada sida la isugu daro, loo kala jaro, la isugu dhufto, la isugu qaybiyo sida nambarada caadiga ahaa.